waxaan maraynay arrinta markaa dumarka ku saabsan iyo yacni dhaqankii soomaalida haddaan nahay ee aan markaasi barasho la-aanta diinta ay keentay in aan dhaqankii jaahiliga taqriiban wax ka mid aan qaadano. marka waxaan maraynay xadiidka يعني علي بن أبي طالب iyo فاطمة رضي الله عنهما markay isku dhaceen ama hadal uu dhaxmaray labadooda taw rasuulka calayhi salaam gurigiisa intuu yimid ama gurigooda intuu yimid uu waayay kadibna yani masaajidka loogu sheegay inuu joogo kadibna masaajidka markuu aaday arkay cali oo markaa jiifa go-iina oo dhinaciisa ka dhacayo yani asagoo markaasi ciidana jirkiisa qayb ka mid ah uu markaa taabtay ama uu ciida yani jirkiisa yani ay qayb ka mid ah ciid ahayd oo rasuulka markaa guda galay inuu ka masaxo ka tirtiro asagoo la kaftamayo dhahayo qum aba turaab kac aabihii yani ciidow asagoo la kaftamayo. arrintaasi maxaan ka qaadanaynaa faa'iida ah macnaha dumarka maxaa faa'iida ugu jira xadiidkan ama arrintan maxaan ka qaadanaynaa si fiican laga hawraariciya maxaa yeelay dhowr faa'iida ku jirta oo ay tahay raggana inay bartaan dumarkana inay bartaan. waxaana nidhi mar alla marka diinta barashadeeda aan ka gaabinay waxaa dhacday in jahlina oo noo soo gabaday gaale iyo feminism iyo wax aanan haba yaraatee shaqo aan ku lahaynna ay noo soo gabadeen naftirkooda ayagoo markaa raadinaya xuquuqda dumarka iyo xorriyadda dumarka ilaa ay noqotay in dumarkeena la doonaya xataa xishoodkii iyo xijaabkii iyo wixii ilaahay subxaanahu watacala u abuuray in macnaha la dardarsiyo la dhaho waaba macnaha gumaysi. ayib haddaa marka faa'iidaadka ugu horeeya aan soo qaadana waxa weeyaan rasuulka calayhi salatu salaam guriga ayuu yimid gurigooda waa Faatima binti rasuulillaahi sala allahu alayhi wasalam iyo cali ibn abi taalib labadooda gurigooda yimid. rasuulka markuu soo galay sida culimada ay leeyihiin kitaabka ama xadiidkaa sharaxay wuxuu dareemay rasuulullaahi sala allahu alayhi wasalam in Faadimo macnaha si ay wax ka yihiin oo ayadii cali macnaha yani ay wax uu jiro ay dareemay markuu soo galay. ma uusan dhihin aabay ninkaada u fiirso ayna zawjuki ma dhihin haba yaraatee ma dhihin xataa ma dhihin magaciisa uguma yara ayna cali ma dhihin sida kutubta ku qoran. wuxuu yidhi maadaama dareemo uu dareemay yacnihi inay wax jiraan dabcan qofka wejigiisana waad ka akhrisan kartaa marka aad yani aragto xaaladda uu ku sugan yahay bal rasuulullahi calayhi salaam waxaa u dheerba inuu nebi yahay rasuul yahay. marka wuxuu ku yidhi ayna ibnu cammuki aaway ina adeerkaaga aaway. si waxay leeyihiin culimada marka meesha waxaa ka muuqata inuu dareensiinayo Faatimo yacni ninkaada un ma ahan cali u fiirso ninkaada un ma ahane ilma adeerkaadana weeyaan qaraabaadtiin macnaha yani maadaama isku dhacdeen qaraabanimadaha ilaawin oo kale yani asagoo macnaha ilaalinaya mashaacirteeda dareemaheeda uu dhihi karay aawi zawjkaada aawi ninkaada uu dhihi karay laakiin rasuulka ma unan dooran wuxuu u dooranna wuxuu ilaalinaya maxay dareemaheeda. cajiib macnaha bulshadeena Soomaaliyeed marka xaaladda marka aan u bandhigno aan fiirino ma leedahay xaaladda noocaas oo kale ah qof iyo qof isku dhacsan inta loo soo galo ma la shidaa qofta mise maxaa yeelay rasuulka markuu yidhi aaway ina adeerkaaga waxay tidhi Faatima wax baa aniga asagana dhex maray waan isku dhacnay kadibna uu iga tagay ma aqaan meel uu aaday laakiin uu iga tagay gurigu ka maqan yahay. had u fiirso hadalkaasi Soomaalida haddaan nahay waaqicina aan ku macnaha yani cabirno ninka gurigaas soo booqday ha noqdo aabe walaal qaraawo hooyo eedo habaryar saaxiib dhammaan marka ay soo booqdaan sida loo badan yahay qofkii aad soo booqatay markuu kugu dhahay ninkii aan isku dhacnay ama sidaasaa jirta waxaa lahaye maxaa dhacay intee wax ka dhaceen waa la barbara waa la qodqodaayo yani maxaan ku dhahay ilaa ay qofka mararka qaarkiisa uu dareemo xanaaq kale iyo carag kale iyo bal dadka qaarkiisa annaga naga mid ah ayba ku diraan oo dhahaan
sow kaaga adkaan karaa, sow kusaan ku samayn karaa, intee ka dhacday, iska dhici ninka oo sidaan sameeyo, war ifur dhaho wixii la midka ah. muddo saa aan u fogeyn oo hadda laga joogo yacnihi bilo ayaa gabar yacnihi reerkeeda isla ayadaa qisadan warinaysa oo sheegaysa oo noo sheegaysa si un adiga yacnihi qadar ahayd laakiin hooyadeeda sabab u noqotay inuu ka dumo. ninkeeda isku dhaceen mar alla markay isku dhaceen hadda korna isku dhaceen macnaha oo hooyadii waxay wacday ninka familkiisa wacday ayadoo maamada dacwoonaysa waxay ka dacwoonaysaa wiilkan gabadheeda qaba familkiisa wacday. haddana markan kale isku dhaceen maamadii waxay samaysay markiiba familkii ninka ayay wacday maxay gabadha u sheegaysa ileen hooyo ninkii haddana isku dhaceen saan isku haynaa. familkii ninkay wacday haddana maamadii familkii ninka intuu aabihii wiilkiisa soo cuyuray dhagayso gabadhan maalin walba yacni khayladeeda iyo buuqeeda iyo dagaalkeeda hooyadeeda aniga maxaan ku dhahay nala soo raadsanaysa hooyadan teleefonkii habeen iyo maalinba yacni haysata maxay tahay war reerkaada dhaqaniyo nin ragaa tahaye ma ahan miya haddaan reerkaada dhaqan karin hadda iska fur. guriga u yimid maamadii oo fadhisa aabihiisaa soo wacay soo xanaaqsan markaasuu uu isheen waayo maamadii oo guriga joogtan markuu arkay ayaa wuxuu yidhi xaaskiisa uu ku dhahay nakeen qolka aan galnay macnaha waxayna waan wada hadlaynaaye. maamadii waxay tiri maya ma wada hadlaysaan halkan ku wada hadla waxba halkaa ha gelin waan ogaa wax walba halkan ku wada hadla. hooya halkan se ugu wada hadlayna hadduu waa soomaali ogow se ugu wada hadlayna halkan waana yacni cajiib waxyaalaha aan leenahay ka mid tahay mararka qaarkiisa. marka maamadii halkaa ku wada hadla markay tiri ay ku adkaysatay wuxuu ku qasbanaa inuu halkaa iska fadhiisto. haye maamadii aad dhegaysanaysa ayadaa garqaadaysa markaasaa waxay leedahay gabadheedii sidaasaad ku samaysay intaad ku samaysay waa kaa haddaadan gabadhaan rabin ii fur gabadheeda. hooyadii aad dhehaysa marka qadar waxaa ahayd marka in meeshii gabadhii macnaha lagu furay. xaaladaasi iyo xaalado lamid ah waxaad markhaati ka tihiin hooyooyin qaar inay sabab u noqdaan, aabooyin qaar inay sabab u noqdaan, walaalo qaar sabab u noqdaan, saaxiibo sabab u noqdaan, macnaha inay jirto waaqic noocaas oo kale ah. rasuulka calayhi salaatu wasalaam mar alla marka uu maqlay ma uunan sii qodqodin ma uu weydiin wax baana dhex maray tiri wabillahi tawfiiq markiiba uu gadoomay asagoo raadinaya cali meeloo ka fiirfiiriyo ka waayay markaasuu qofka u diray yiri soo baar halkuu jira aawe intuu aaday mise waaba kana qofkii misaadka jiifa u fiirso. sidaa darteed mashaacirta iyo dareemaha qofka gabadha in la ilaaliyo mujtamacana arrintaasi ay ku baraarugaan khaasatan xilliyada macnaha jilaaca uu jiro xilliyada macnaha yacnihi dhibaatada ay jirto xilliyada ay dareemayso maxaan ku dhahay ciilka ama ay dareemayso macnaha culayska ay dareemayso macnaha ma dumarka kaliya la ragga xataa waa sidoo kale laakiin ujeedadeena hadda waxaan ka hadlaynaa waa dumarka. maxaan dumarka aga hadlaynaa laba shubhaan rabnaa inaan baabi'ino. shubhada ah qolooyinkan gaalada ahee dumarkeenna macnaha weerarka ku ah ee isku dayaya jahliga jira ee baahsanee guud ahaan yacni ama inta badan soomaalidana aan qabno inay aga faa'iidaystaan iyo sidoo kale dhaqankii macnaha diinteenna yacni marka la baran waayey aan ku laabanay dhaqankii taqriiban jaahiliga ahaa ee ahaa gabadha in la liido. marka labadaasaan rabnaa shubho inaan baabi'ino. waxaanu ku baabi'inaynaa annagoo mar walba soo qaadanayna daliil ama axaadiista ha noqdaan ama kitaabka qur-aanka ha noqdo inaan mar walba aan macnaha ku baabi'ino macnaha shubhooyinkaa jira. marka waxaan ka faa'iidaynaa nidhi kow la ilaaliyo qofka dareemihiisa khaasatan marka uu xaaladaasi ku sugan yahay oo aanan dab lagu shidin kow iyo dheh. labo waxaan ka faa'iidaynaa sidoo kale gabadha aabbaheeda hooyadeeda yacni aabbaheeda inuusan u baahneen gabadha inuu cidna fasax ka qaato ninkeeda fasax inuu ka qaadanayn guriga imaashihiisa. u fiirsa hadalkaasi. waxaan kaloo ka qaadanaynaa xadiidkan in gabadha iyo ninka markay isku dhacaan ninka inuu guriga ka tago meel kala seexdo oo qayluusto ama u seexdo inaanan ceeb ahayn sida dhaqanka soomaalida inuu ceeb yahay aan u ognahay bal inay dulinimo tahay oo ninka ay tahay inuu liito ninka uu yahay mid baaba'san maadaama reerkiisa yacni maxaan ku dhahay aad og tahay uu ka soo tagayo waa kaas oo la soo buriyey macnaha hebel bacdaa guriga loo soo dhigay macnaha looga soo saaray ama bacdaa banaanka loo dhiga dheh
guriga laga soo saaray yani dhaqan waxaa jira macnaha maxay sidee ninka loo sameyn kara sidee ninka loo taaban kara sidee ninka saa loo dhihi kara sidee macnaha gabadha waxba ma sameyn karto gabadha ma caroon karta gabadha yani gabadha ha yaa khaldan gabadha waana tay Soomaalida ay mahmaha xun ay leedahay oo ah wixii xun baxaawale wixii xun baxaawale mahmahadaasi run ahaantii dumarka ay bahdilaysaa waa in la joojiyaa sidoo kale wixii xun waxa iskale cidda xumaanta sameysay ha ahaato dumar ha ahaada nin waa la kala leeyahay wax walba marka kan insha Allah ta'ala faa'iidahan kooban qaadanayna oo intaasan ku soo koobayna bi idin Allah ta'ala إلا إيو خيبتك الأنجلين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.